صحيح صوري وكان أنت قريب الدنيا معه وكنا الدنيا معه وضلان وكل شيء مقالة أبدو جارهان حافظة دينا بونددا حتى أيوه كل شيء وحدنا أي دقيقين حولها سنة أفريقيا دي هذا ماشي كل شيء نوع أخي هذا واحد كلنا هاي سويسرلاند جارهان قبل كلواتني اللي حد شورا أما شوقة سيدا قفوه ويقانو وهذا ماشي أمرنا وبونددي أما ضلعدي لقاركا أما بانهوفكا ولويرا وافكا ترملكا الصومال ما حرقولها الصومالي ما بالله همبو ماشي تريمدا أي الويرا هذا لكن وسيدا أنا إلى تايلاند الصومالي لكن إنه سجيرنا هنا عادية أو تلمامة ماشي تريمدا وبستوجي هذا أنا حتى وحنا نقولنا يا لون إيطاليا marka waxaan qoranaynaa hadda meeshii tareemada xaruntii tareemada hadda xaruntii tareemadan u soconaa ninkan sheegada yiran lihi oo suuqa cad wata nin la yiraahdo Maxamed Axmed Ali oo ku magac dheer Fanax oo hadda soo shaqeeya gudoomiyaha jarida gudoomiyaha kaaliyada ninkaas laakiin waa ninkii kaliya oo hadda naga shaqeeya هذا التلفون يسون علي يقرأ عليه أولا حتى قريبين أو كذي مطور نصب قصتك يا أيها الناس خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل marka ninka duubaya xataa waxa weeyaan ninka duubaya xataa waa kana ninka duubaya hadda soo jeeso deef maxamed xasan rooble soo jeeso hasii jeesana maxamed xasan rooble kaasa waa aragnay hadda waxaan sawiraynaa laamigii iyo caradii oo dhan ayaan hadda sawiraynaa buurihii waa kaasa magaaladii waa tana bal magaalada oo dhan aanu sawirno si oo ma aragtay buurtaasi waa buurta aanu deganaan jirnay xilligii oo qaxootiga aynu ku jirnay haddana waxaanu maraynaa dhinaca iyo magaalada Bilbien bal hadda soo sacay leeyihiin waan soconayaa laakiin inaan u duubo waaye si tartiib ah waa kaasa Maxamed Xasan Roble oo ku magac dheer Deef ku dhashay magaalada Muqdisho oo sidoo hadalka u dhigay dadka dhanba waxay ku dhasheen magaalada Muqdisho markii aniga laga reebo aniga ayaa ogol inaan ku dhashay meel baadiye ah oo waliba banaan iyo geede isku jira meel dhaxdooda ah dadkan dhan waxay ku dhasheen magaalada aaway hadda yarkii wakaas cadaa ahaa Fanax Maxamed Xasan Roble salaamu calaykum walaal wax yar ma noo sheegi karaa meesha aad ku dhalatay iyo aniga reer Muqdisho sanadii aad dhalatay ma noo sheegi kartaa walaal 80 kii aad dhalatay ma sheegi kartid laakiin mar aad ka dhalatay maya maxaa ugu wacan laakiin dadka dhan waxay yiraahdaan magaalada Muqdisho ku dhalanay dhul kale ma jiro miyaa oo Soomaalida ku dhalato qof meesha ku dhalatay inay sheegto waa qofka dadka badankooda Muqdisho waa caadi laakiin hadda meeshan waxaan ku noolnahay dad gaaraya halkan waxaan ku joognaa dad gaaraya ilaa iyo 30 Soomaalida gobolka aniga ayaan laga arkay wax baadiyo uga dhashay maxaa ugu wacan taas in adeer طبعا وحاصله dadka inta badan meesha dhibka laga dhacay badaqaalada ka socdaan waa magaalada Muqdisho dadka Muqdisho dignaa soo bax marka waxaan ka imid baadiye Muqdisho kama imaanay waa si saxan u sheegay adiga dadka baxaya arta dabcan waa asaas ku soo raacay sidaas aan ku soo raacay waa runta oo hadda dhibka isaga mid aan ka nahay
laakiin dadka dhan waxay taagan yihiin inay ku dhasheen magaalada muqdisho markii aniga laga reebo kelmad kale haddaan ku weydiiyo taa haddaan ka gudubno halka uga gudubno mudane deef dhanka kale haddaan fiiriyo dadku aniga maahan kulligood qof aan sacuudi tegin ma laha ayadana maxaa ugu wacan aniga ku hadlayo weligay ma tegin sacuudi maanta adaa laba igu noqday adaa laba ku noqdaa ha maanta adaa laba igu noqday laba qof aan horta haynaa waxaa sacuudiga tegin soddon aan nahay soddon markii laba laga jaro waa 28daasi sacuudigay tageen walow hadda ay inkiri doonaanba oo dhihi doonaan qaarkood markii la isugu weydiiyo ma tegin laakiin markii runta loo sheekaynayo dadka dhan way tageen hadda waxaanu u soconnaa suuqa weyn oo fuusti loo yaqaano suuqa weyn oo fuusti loo yaqaanaan hadda u soconnaa baabuurtan waa inaan duubnaa annagu wax la dhacaan naqaanaaye wax la dhacaan naqaanaa waa inaan horta baabuurtan ta dhacno muqdisho iyo hobyo waa inaan geynaa ya maxaa ka qabtaa walaal deef maxaad ka qabtaa baabuurta inaan dhacno hadda askartuna maqli maysa ogow oo aniga adiga ha baqine aniga waa cabsan ma ha cabsan inaad cabsan xaragan duubayaa soo xarago ay xarago salaamu calaykum xarago salaamu calaykum muwaalanta maxaa la yidhaahdaa baabuurtaa ma rabaa inaan dhaco adiguna muwaalanta ay leedahay aniga معو السلام عليكم معو السلام عليكم عليكم السلام والله مقعد صدحني من دون شيء كرتا عبد القادر عبد الله الشيخ محمد فقي حامد فيسي وافطر تتي اصو صدحنا كون نريه ترى قبل سنه ضد على من دون شيء كرتا ولا كل سقال بقول لحد يا رشيد كل سقال بقول لحد براقوط هي مقالد حقا ku dhalat مقالد بقول استلبرتي يا قدش كل سقال بقول لحد يا رشيد لقدرتها waxaan jiraa afar hadda xagee baa ka timid oo ka soo baxday hadda waxaan ka soo baxay magaalada Dalmo si aan u boqdo Mixionka iyo Mulerka iyo Casablanca iyo haddana xagee joogtaa haddana waxaan joogaa Agtaaw aad baad mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa Cabdulqaadir Cabdullaahi Sheekh Mustafa Fanax salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Fanax magacaaga oo saddexan walaal ma noo sheegi kartaa مقعي وحلي محمد أحمد علي محمد أحمد علي ونكحن حرق تولي واي وإن سفي عن لو دوبا هورتا سجا مركا محمد أحمد علي بالي هذا حاجة كلها تولى عن كل شيء مقدسه جارحان دقيقة دوابري قول ما بعدلت كون سيال بقول جديد شنت دور رالي سؤال مكويدين كرا ويدي كذا بلي تفضل dadka dhan aniga ma ahan kulligood waxay ku dhasheen magaalada Muqdisho su'aashaas ma ka jawaabi kartaa ها واي dadkii taas ku baranay isma naqaano ninkasta wuxuu sheegtaa markii uu intii mid wuxuu yiri waxaan ku dhashay Muqdisho waayo adil asila la yaqaan abis lama yaqaano walaajis lama yaqaano markii lama oga karo xaqiiqada jirto qofkii uu ku dhashay baadiyo hay intaas ku baran waa sax laakiin dadku hadii ay joogaan 5 sano hal meel waxay ka dhigan tahay dad is yaqaan oo hore isu yaqaan oo kale matalaysa laakiin waxaan aska naqaan xaqiiqa qawaayisha iyo meelaan ka imaanay laakiin ma naqaano aabihina dhalay iyo waalidkii ma akin laakiin waxaan wasbarna xaq dibacadaas ka baran su'aal kale haddaan ku weydiiyo adigoo raali ah oo dib u arag dadku aniga ma ahanay gabigooda Sacuudi wada tageen taana maxaa ugu wacan walaal taas waa jirtaa ani inta ka aqaano inta tagtay inta aan tagin inta tagta badan hadda 30 qof aan ku joognaa ugu yaraan 2-3 meelahaas mooyee inta kale way tageen ma waxay iska jeclaad inay yiraahdaan waan tagnay ayagoo tagin base waa run maxaad ku qiyaasi kartaa su'aashaas dadka qaarkood laba si waa dadna baahi ka carraan dadna waxbarashada wadanka ka carraan waa waalidkii aad ku dhigay bartaan lahaa saddeed wadanka waxbarashada ka carraa ninna waxaa lahaa ninna baahi wadi oo lacag helo iyo irsaaqadka wanaagsan ninna cidii oo ku noolaa familiga waxbarashada u galay soo waxbarashada ka carray oo hortaga wadan kale kaasi wuxuu ahaa Maxamed Axmed علي oo loo yaqaan Fanax ama Xorow السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله sidaas iyo kulanti dambe oo wada aragti dambe leh hadii ilaahay yiraahdo haddana aynu ku wareejiyo kaamiraystaha weyn ee Dayf Yare Maxamed Xasan Roble la wareeg xilka
بسم الله الرحمن الرحيم انت سيكسو قبلنا برامج كين سعودالك كاميرا داليمون والسلام عليكم فرسماد waxaa noo jooga Xasan Maxamed Xasan Cirfa dhanka kaamirada waa aniga Shariif Umar Shariif mac salaama